وفد بلادن وهجامين يوم مشرح مدحوينها حزب معارض كأيعود جمال علي حسين ونوه اليوم مشرح مدحوين كحيين كحزب عاصي عبد الرشيد حسن مطان أيام ما أنت سوين لو يسود ويمقالة برع حرونت قبل كتقدر قاديد يدد وين أبدا قالوا لي علن كيسورة مشرحين تاسي أيها كجورتجي وفتجا دولت كمقالة قيتا كدم نوسق البيادين عن مقالة هسي شيء كهر أنتي أنا سوق قاني وفتجا حزب عود مقالة أيها لجور جلية إن أنا ضافي كرين هوتيل عقال برعو halkaasina uu kala hadlo taageerayaashiisa iyadoo hotelka hortiisa la dhigay ciidamo booliisa oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo balse amarkaasi ma noqon mid hirgala waxaana waftiga oo ay galbinayaan taageerayaal aad u badan ay dhaafeen ciidamadii booliska ee la dhigay goobtaasi waftigan hogaaminaya Jamaal Cali Xuseen ayaa lagu soo wareejiyay jeedka magaalada Burco kadibna waxa uu taageerayaashiisa kula hadlay xarunta xisbiga UCID ee magaalada Burco musharax Jamaal Cali Xuseen iyo musharax ku-xigeenkiisa Cabdirashiid Xasan Mataan salaadiin iyo waxgarad halkaasi kala hadlashay taageerayaasha xisbiga UCID ayaa waxa kamid ah hadaladoodii reer Burco waxay muujiyeen dareenka taageerada ay u qabaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka xukuumaddu waxay doonaysay inay sidii Cabdullah oo kale ay dhacdo waxay doonaysay in ay mar labaad ku celiso wixii aan xilka lahayn ay u baratay laakiin dadweynaha reer Burco way ka diideen dareenkooday muujiyeen way u ogolaan waayeen barasaabkii iyo ciidamadii watayba in ayna joojiyaan iyagoo doonaya inay nagu joojiyaan hotel cigaal oo ku yaala duleedka magaalada Burco hormay noqotay in Somaliland baasaboor loo kala qaato dadka lagu yiraahdo magaaladiinii tagi maysaan soo booqan maysaan xafiisyadiinii goormay noqotay arrinkaas garamayno waxaasi xukuumadda kulmiye ay wado laakiin anagu waxaan idin ballan qaadaynaa in aanan sidooda kala noqon doonin marnaba in aanan sidooda kala noqon doonin maanta dalkeennii oo biyo la'aan hayso dalkeennii oo ay dhibaataysan shaqo la'aan dhalinyaradii haysa maanta intay wasiiradina ilaa kuriisar ku shaxshaxaadaan ay yidhaahdaan soona saxeexaan Somaliland lama xasuuqin runtii wax la aqbali karayo maaha waxaan jecelahay inuu dalkeenu noqdo dal cadaalad ku dhisan Somaliland اعترافkeedu waa mid naga go'an insha Allah istaraatiijiyada aan u maraynana waanu garanaynaa laakiin waxaan u mahadnaqaynaa maanta hadal kooban khudbad uma soo kicin bacadna waa taagan tihiin aad baan idinku mahadnaqayaa waxa kaloon idin sheegayaa wad ogeedano ilaa xalay toole TV-ga qaranka waxa haystay xukuumadda Somaliland oo doonaysa inay isku dirto xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo dadweynaha reer Somaliland ورئيس Somaliland ويقانن حزب عدالة يدريالك حزب عدالة يدريالك والله يقانن قضية Somaliland مل سرك تشوفه وحن ليه هذا الذي أنا وراكسني دولة باتين هؤلاء من أحساس دولة تساوي من قتين وعلى ذلك الدنيا إذا سيد ملكه يشرفتي دولة نمو هذا إلى لسان oo TV-ga qaranka ay 3.5 milyan dollars ku ay ku baxaan inaan lagu caytamin ayaan doonaynaa soo dhaweyntiina si aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa dareenkiina aad baan uga mahad celinaynaa waxaynu u soconaa waa qarannimo waarta hadii alla yiraahdo qarannimo jirta weeyi waxaynu u soconaa inuu dalkeenu noqdo dal horumara dal cadaalad u shaqayso dal ay shaqayso waxqabadka iyo qofku inuu kartidiisa wax ku noqdo ee aan qof jeclaysi wax lagu noqon aad iyo aad baan idin salaamayaa waxa weeye waxaanu taaganahay bacad hawl badanna waa soo gasheen in badanna waa na sugayseen hadalka ku dheeraan maayo inta waxaan ku darayaa yaa odhan kara Burco iman maayo Jamaal Cali Xuseen ma iman karo kama qodbadeyn kara yaa odhan kara waa magaalada ay u dhasheen waa dadkoodii waa walaalahood
musharax Jamaal Cali Xuseen iyo waftigiisa oo maanta soo dhaweyn ballaaran kala kulmay magaalada Burco ayaa la filayaa inay maalmaha soo socda ku sugnaan doonaan magaalada isla markaana kulamo gaar la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Kays Axmed Digaale, Home Cable TV, Burco.